asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal iyo dhegaystayaal meel walba oo aad ka daawanaysaan ama aad ka dhegaysanaysaan barnaamijkan kusoo dhowaada mar kale iyo darwiish t v barnaamijka aan ugu magac darnay sooyaalka darwiish t v barnaamijkan oo ah barnaamij gaara ayaa waxaa maanta aan uga hadlaynaa xaaladaha waddanka soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waddanka soomaaliya la filayo inay ka dhacaan kuwaasoo bilowgoodu lagu rajo weeyahay in ay ka bilowdaan sanadkan dhammaantiisa haddii ilaahay idmo sanadka soo socdana lagu wado in ay soomaaliya yeelato dowlad cusub haddii ay ahaan doonto madaxda hadda joogta iyo ama ay noqdaan kuwo kaleba ay soomaaliya yeelan doonta mustaqbalka ee dowlad cusub waxaan haddii ilaahay idmo barnaamijka iyagan gaarka ah aanu maanta aan ku casuumay oo iigu marti ah weliba isagoo kaga jira qadka barnaamijka waddanka dhinaca ingiriiska waa isku daynay in barnaamijka noogu suuroobo mid maqal iyo muuqaal ahaana hase ahaatee laakiin barnaamijkani hadda waxa aad u daawan doontaan oo uu maxamuud kaga jiraa dhinaca codka inta aanan bal su-aalaha aanan ku bilaabin wax yar oo bal maxamuud wuxuu sidaa uu idin sheegayba ku nool yahay waddanka ingiriiska hadda waxa uu ka qabaxay jaamacadda ee ummadda soomaaliyeed sanadkii 1987 wuxuu ka qaatay shahaado waxbarasho ah jaamacadda waddanka ingiriiska London shahaadada sidaasoo kale masterkana waxa uu ka qaatay jaamacad ku taala London sidaasoo kalena waxa uu maxamuud mar walba uu kaga hadlaa bartiisa Facebooka arrimaha markaasi ka taagan waddanka Soomaaliya waana qof aad u daneeya sida uu Soomaaliya uga bixi lahaa xaaladaha ama dhibaatooyinka ka jira barnaamijkan sidaasoo kale waxaan uga hadli doonaa dabcan dhibaatada Soomaaliya ka jirta waa mid aad u baahsan dhinacyo badana taabatay koonfur iyo waqooyiga sidoo kale barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa arrimaha waqooyiga Soomaaliya ee kaga aadan xagga dawladda iyo sidii ay ku gaari lahayd dawlad Soomaaliyeed inay ka hana qaado ama ay gaarto goboladaas mar koowaad ku soo dhawow maxamuud barnaamijkan ku soo dhawow haddii ilaahay idmo waxaan jeclahay su-aalo halkan iigu qoran in aan bal ku weydiiyo marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku bilaabo arrimaha Soomaaliya guud ahaan sidee u aragtaa hadda xaaladeeda sida ay tahay waad ogtahay hardan culus ayaa wuxuu ka dhacay sidii doorashada ay ugu qabsoomi lahayd wixii ay hadda ku dambeysayna waa la socotaa bal arrintaas aynu ku bilowno marka hore kusoo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم أحمد حبيبي iyo ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa hadda ama hadda uu dhageysan doontada waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام hadaan sidoo inaan aragtidayda aan ku biiriyo ama aan ku cabiro sida hadda ay marxaladda Soomaaliya ay tahay Soomaaliya waxay ku jirtaa hadda runtii xilli aad moodid kala guur waxaanay dadku ugu yeedhaan oo waxaa laga baxayaa marxalad kalena waxaa la rajaynayaa in la galo marka dhinac laga fiiriyo rajaa muuqata ha yeeshee had iyo jeer rajooyinkeena qof doqonaa waxaa laga sheegay maxaa laga soo helayaa maanta beriba waan lumayaa rajooyin badan oo aynu lahayn ilaa iyo kun iyo maxaa la yidhaahdaa 1999 ama 2000 dawladii hasta mar walba ummaddu way ka caysay raja u abuurmisay mar walba dawlad cusub ay dhalataba haddana rajadaasi baylah bay runtii ku dhacaysay ilaahay waxaan ka baryayaa tan inaanay inaga baylihin rajada muuqataa waxa weeye in kacakuf kasta iyo magaranaysaa caqabad kasta oo lasoo maray maanta la taagan yahay meel maamuladii ka jiray jamhuuriyadda federaaliga ah ee Soomaaliya iyo madaxtooyadii ay isla garteen in doorasho ay dhacdo oo waqtigeeda dhacdo waxay kaloo isla garteen habkii doorashada loo mari lahaa marka halkaa waxaa ka muuqata rajo iyo in qofka Soomaaliga ah uu cabiri karayo in xilli kala guur lagu jiro oo qof waliba
qofkii siyaasi ahaana uu xusuuduubayo sidii uu meel uga geli lahaa qofkii kale ee Soomaaliyeedna uu dee rajo qabo karo maxaa imaan doona waxaa imaan doona ma wixii kaloo kale noqonayaan insha Allah waa aragnimo ayaa laga qaadanayaa wixii hore ayna soo maray marka rajadaas jirta waxaan runtii ku faraxsanahay يعني daqiiqadihii ugu dambeysay ama yani waqtigii ugu dambeeyay wax kastaba la soo maray in intii doorashada kan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ahaa wixii dhigna markaa ay hadda ishelay inay isla garteen arrintaa kana gudbeen maxaa la yiraahdaa ku jibsidii iyo magaranaysa iyo أنا ديدي وكايل ما يتعيد هالصعوبة. مركب مرحلة صاحت الله مرة يا هذا مرحلة ودي رجع أنا مقطع عبتينا ويشركها وعبتينا وحويا وحي هوري صومالي وصوم مرتين. رجوني دي خسارة عبتيها هذا شركها. وايه. حق عبسيدا كل إننا قويها نتاعي أدنى ولا السعودية إنك استو يوروب أتشوكتيد أنا عن مريكان كتشوكو. dadka Soomaaliya waxay yiraahdeen warka ama xaaladda mar walba wadanku uu ku jiro dadka dibadda aad ba moodaa inay uga dhuundaloolaan xaaladda cabsida ma kugu jirtaa cabsi Soomaaliya dabcan leadershipkeeda ama hoggaankeeda waxaad moodaa marba marka ka sii dambaysa inuu ka soo hagaagayay fahanka dawladda iyo mas'uuliyadda saaran dadka xukunka marka hayo wax walaaca ama cabsiya ma kugu jiraa waxaad ogtahay hardan badan inuu hoos ka socdo oo qolo walba ay doonayso haday xildhibaano tahay ama xukuumadda inay gacanta ay ku dhigaan ma kula tahay caqabad ana ku raaciyo mid kamid ah waxyaalaha ay caalamka aad uga baqayaan wadanka Soomaaliya waxa kamid ah musuqa oo aad ogtahay wadanka hadda deyn in laga cafinayo wadamada deynta laga calfinayna laga rabo inay raacaan sharciga inay wuxuu walba ay transparency ahaadaan dhaqaale la lunsada iyo waxaan ay jirin marka ma shaki ma kugu jira ama cabsi ah wadanku hoggaankiisa haduu isbedel ka dhaco ina dib u dhac uu ku iman karo wadanka hadii aan la helin hoggaan wanaagsan waa ka xumay waan dheereysaash ma wad ma santahay cabsidaasi way jirtaa aad iyo aad bay u jirtaa sida aynu uga baranay dadka siyaasadda u orda dhinaca Soomaaliya marba loo geeriyay koonfurta Soomaaliya sida aynu uga baranay cabsidaasi way jirtaa runtii dadka shacabka waxba ka sheegi maayo koonfurta Soomaaliya laakiin siyaasiyiinta koonfurta Soomaaliya habdhaqankooda marka la fiiriyo iyo culture-ka abuurmay waxaad moodaa inay leeyihiin damac aan aragti lahayn damacaasi waa mid badanaa ku salaysan qofka hoggaanka ama u ordaya inuu ka mid noqdo hoggaanka sare noqdo ama kuwa magaranaysa ka hooseeya ee wax la qabsada ay noqdaan inay badanaa ku salaysan tahay damac shakhsi oo ay meesha dantii ummaddu ay ka maqan tahay marka cabsida waxay ku imaanaysaa labo mid waa processka waa wadada loo maro doorashada oo mar walba musuqmaasuq iyo iyo magaranaysa foolxumooyin badan ay ku gadaaman yihiin welina aanay dhammaan waxyaalihii mechanismka ahaa ee lagu kala saari lahaa ee lagu xakamayn lahaa waxaasna aanay jirin heer federaal iyo heer maamul goboleed toonna marka culture-ka abuurmay cabsidiisa ayuu leeyahay waa dhinaca musuqmaasuqa iyo waxaa iyo hay-adihii xakamayn lahaa iyo dhaqankii suubanaaya lagu xakamayn lahaa oo aan weli falgelin laga shaqaysiin qaarkoodna aanay aasaasnaynba marka labada arrimoodba cabsidu runtii way soo gelaysaa waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed xildhibaanadu system baa hadda la leeyahay oo lagu heshiiyo qabaa'il inay ku soo baxaan hadduu iimaan iyo nadiif iyo kalsooni ay jirto iyo qalbi wanaagsan dad wanaagsan oo ummadda samata bixiya oo hoggaanka la xisaabtama oo ku hadda meesha ay ka yimaadeen way imaan karaan kow waxay ka bilaabmaysaa arrintaasi si loo xakameeyo dadka kan markii la yidhi qabaa'il baa lagu soo xukumanayaa dadkan lagu soo xulanayaa qabaa'ilka odayada u ah iyagu saamaynta ku yeelanaya dadka soo bixi doona meesha doonaan ha lagu soo xulee inay iyagu waxa kan islaas ka yihiin inay Soomaalinimo qof degaankooda wuxuu taraya ummadda Soomaaliyeedna wuxuu taraya laguna soo doortay si hufan oo alla ka cabsi leh
oo iyo musuqmaasuq ka madax bannaan hadday isimadu bilaabaan oo iyagu iska xakameeyaan naftooda iyo musuqmaasuq eexdu mid garab inay ku siiyeen qof ehelkooda bani noqonaysaa musuqmaasuquna dee waa in ilaaluush iyo la kala qaato iyo ballanqaadyo iyo wax lamida labadaa hadday xakameeyaan ergada la xulayaana sidaas oo kale la dhaariyo iyo qofka xildhibaanka ah dad islaama baynu nahay laga dhaariyo iyo musuqmaasuq inaanay wax kusoo xulanayn masaajid la geeyo culimadu doorkooda ka qaadato dad islaama baynu nahay waxaan filayaa in dad suuban oo soomaalida wax u tari kara deegaamada ay ka yimaadeen wax u tari kara ay imaan karayaan sidoo kale dadkan madaxda xukunka haya laftooda laga dhaariyo oo hadda mar haddayna sharci weyn oo xakameeya haysan islaam baynu diinta inoo sharciyo inay xakameynayse iyaga laftooda la dhaariyo kuwa maamul goboleedyada madaxda ka ah iyo madaxweynaha federaalka iyo kuwa u socda doorashadaba inay ka madax banaanaadaan iyo musuqmaasuq iyo waxsaafi marka kolley mechanismka kaliya ii muuqda wax lagu xakameyn karaa waa diinta islaamka iyo dhaqankaas suuban in lagu xakameeyo si dad wanaagsan ay u soo baxaan haddii dad wanaagsan soo baxaan hubaal waxa ay hoggaan suuban ay dooran karayaan hoggaan suuban haddii la helana ummadda Soomaaliyeed ma kala foga waa la jeeyn karaa marka adigu rajada ay cabsida isku jirta baan dee qabaasal ahaana waxaan soo jeedinayaa in xagga diinta laga maro maanta oo lagu eerto oo cid walba oo arrintaas xulitaanka ka qayb galaysa la dhaariyo iyo musuqmaasuq inay ka nadiif yihiin waayahay waxaan rabaa dhinaca kale inaan u gudbo arrin kale oo aada u muhiima sidaad og tahay hanan socodka Soomaaliya in la helo dowladnimadii qayb weyn ayaa waxay dhaawaceedu yaalaa dhinaca gobolada waqooyiga ee Soomaaliya taas oo qayb ka mid ah ay gacanta ku hayaan maamul isagu markaa rabo wadanka intiisa kale inuu ka go'o gobolana ay rabaan inay iyagu wadanka Soomaaliya taageeradiisana ay siiyaan kana mid ahaadaan waxaan rabaa marka inaan arrimaha aan wax kaa weydiiyo su-aasha ugu horreysaan raba inaan wax ku weydiiyo dadku taariikhda ama ma aqriyaan ama maba qoraan oo wixii shalay dhacay waxaa laga yaabaa inay la iloobaba su-aasha koowaad waxaa weeye goboladaas siday uga baxday gacanta dowladdii Soomaaliyeed sababta aan ku weydiinaya waxaa laga yaabaaba dadka qaarkoodba inayan macnihii wixii dhacay 30 sano ama 20 sano ka hor ayaan si fiican isu weydiin kusoo dhawow su-aasha waa su-aal wanaagsan sidee baa dadka Somaliland maamulkooda jooga ama aaminsan ay uga go-een midnimadii Soomaaliya oo gooni ugu baxeen arrintaasi waa arrin taariikhi ah arrintaasi inkastoo taariikhda ay sida ay iyaga ugu badinayso nimanka Somaliland hadda jooga ay u sheegaan haddana wax badan baa ka jira waxa ay sheegayaan kow midnimada Soomaaliya waxay ku timid ummadii Soomaaliyeed oo gumaysigu kala qoqobay Talyaani iyo Ingiriis iyo Faransiis iyo Xabashi ay qaybsadeen loo kala qoqobay in laba ka midii ay go'aansadeen inay midoobaan markay xorriyadoodii heleen waxaan midoobayay xorriyadda ku midoobayay ee isu yimid may ahayn dowlado Soomaaliyeed oo jira oo madax bannaan oo dowladaha waxay ahaayeen ummad Soomaaliyeed oo gumaysi kala haystay oo isu baahnayd ilaa iyo maalintii gumaysigaasi midna dagaal ku jirtay labada dhinacba oo dagaalkii jihaadka ahaa Soomaalinimada lagu doonayay ee daraawiishtu ka ahaa koonfurtana sidaas oo kale dagaalo fara badan iyo kacdoomo fara badan iyo dadaalo markii ugu dambeeyay SYL ay dabkii qaaday tooskii ayaa iyagana ka jiray ummadda Soomaaliyeed markaa waa si la yidhi maxkamadii Talyaaniga ee UN-ta hoosgeeyey ballanqaad loo sameeyey maalin go-aan inay xoroobi doonaan ay ka xoroobi doonaan gumaysiga 1 Julaay 1960 ballanqaadka iyagoo haysta ayaa ummadda Ingiriisku u haystay ee waqooyiga ee uu gumaysanayay iyaguna waxay dadaal u galeen inaanay walaalahood ka hadhin oo ay la midoobaan maalinta xornimada ay qaataan
وواحد سو سعودي لا يا عالم كي مركز السمية 1954 لا يا اس واي ال او لبضة ديناع بكسة غينا الشيء إلا اس ان ال يمقرن يسجل سي ولدي كالان يو اف ويجونا مروضة ورشوه دو وضعها بدمناضها si kastaba aragtiya hoose ugu kala yara duwanaadeene laba bilood ka hor inta waqooyiga xornimada qaadan waxa magaaladan ingiriiska London yimid afar nin oo ka socda waqooyiga maxamed xaaji ibraahim cigaal cali garaad jaamac axmed kayse iyo xaaji ibraahim nuurun aaba filaya fariinta ay wadeen waxay ahayd inay la midoobaan walaalahood 1 July aanay ka harin waxa ka sahlan jiraadee go'aankoodii waa loo yeelay sidii maalintii xornimada 16 Juun la qaatayna iyadoo sideedii ayaa go'aan lagu soo gaaray xamar la yimaado Act of Union baa dhacay Act of Union kaasina midnimada wuxuu ahaa waliba qodob baa ku jiray heshiiskooda ay ka wada hadleen ku heshiiyeen inaanu ka noqosho lahayn oo abadiye yahay afti dastuurkii waa lagu qoray afti baa loo qaaday Soomaaliya oo sidaas ay markaa u codaysay laakiin ilaa maalinta xornimadu bilaabantay ilaa maalintii SNM lagu dhawaaqay qoob iyo maxaa qoob iyo silada laga dhawaaqay saluug baa jiray dhanka waqooyiga qaasatan reer kamida beelaha degan waqooyiga oo reer Sheekh Saad garha ahaato gardaraha ahaato waxa laga khaldanaado ha saxsanaadeen laakiin wuu jiray waa wax xaqiiqo ah oo jiray saluugaasi waa kii keenay SNM lagu dhawaaqo waa kuwii reer ahaan ku baxay Itoobiya dabada geliyay marka tabasho ay tabanayeen oo ka dhalatay saluugii wax wada lahaanshaha iyo dawladii kacaanka ahayd oo runtii maareyn kari weyday tabashada oo markii dambena tacadiyo iyo ku talaxtag awoodeedba samaysay iyadoo markii dambe lafteeda SNM ay sameynayeen oo dad Soomaaliyeed markay SNM ahaayeen laftooda ay dhibaatooyinka ay u geysanayeen hadda ay Somaliland yihiin wali ay ku hayaan haddana waxa keenay inay go'do Somaliland waa tabashada beeray iyo dawladii oo maareyn kari weyday tabashada taasa keentay isku dhacyo in qabiil u baxaan in dawladii Soomaaliyeed aakhirkii meelo kalena ay magaranaysaa jabhada kale ay ka abuurmaan oo intii isbabadiyay ka horeysay USP markii loo jiray sidaas ay dawladii ku burburtay koob iyo 90kii markay dawladda Soomaaliyeed burburtay qoladii SNM watay burashirka ku qabteen shirkaasi shir wuxuu iska ahaa min diraacisa kala midaysan oo lagaga tashaday oo dadka reer waqooyiga ka tashadeen ma jirin SNM iyo rabitaankeedii baa lagu muquuniyay sidaas ayay ku timi horta go'itaanku waa yahay maxaa xigay marka okay Kariim waa yahay inta aanan u gudbin su'aal kale aan rabay inaan ku weydiiyo dadka reer waqooyiga nasiib wanaag kama dhicin sidii koonfur oo kale dagaalkii jabhadeedku iyo qabaa'ilaadkuba dadku waxay isku dayeen in dagaalaadka ay istaagaan dadka nabad laga shaqeeyo maamulna qaarkood waxay aaminsanaayeen sida Sool iyo Sanaag in maamul ay samaystaan dhinaca kalena SNMta waxay rabtay in maamul baan u malaynayaa ka go'an Soomaaliya waxa lagu yiri qodob baa jiray qodobkaaba oo qodobka lagu kala tagay wax yarba waxaan rabaa markii inaan ka weydiiyo maxaa kalifay marka haddii shirarka qaar kamid ah ama ay dad qaarkood ka qayb galeen in lagu kala boodo oo wax lala sameeysan waayo SNMta inkastoo aad taariikhdeeda hadda aad ka sheekaysayba ahdaaf kala gedisan baa meesha taalay شبهدن SNM نشاط شبهده بيسان أو وطن كقبصتي أو عيدا في سومالي ملتري يخدكودي وحلا ريال حديث ملتري يقول عنك قطي جاي بيا هاي حقيقة تنطق سومالي اللي يعني بركي كده قالوا السعودية إنه لا يستيقظ في قالوا دي تنبي لا يستيقظ صوت كلام وطن كا SNM لا يستيقظ كلا ثقافة كي وكلا أركتد وناين تذكر سوريا السنة دي أوضل تكن هي تذكر كلا SNM تكاجرياش ولا reer Sheekh Saad marka qolana waxay rabtay nabadgelyo in lagu wada noolaado oo uma muuqan waxa kan iyo aragtida kan imaamul gaar ah inuu gaar u qonayo waxa wada hadalna diyaar ugu ma yahay hawshaasa qolana waxay rabtay inay waxay u dagaalameen iyagu si ay u arkeen xaq u lahaayeen oo inay go'aana marka taasa waxay keentay
inay iyagu qori caaradii bay ahayd haddaad dab u wareysay qori caaradii iyaga laftoodii bay raacsanayn qoladan SNM laakiin haddana dee taariikh dhacday bay noqotay inay go-aankaas uu meesha kusoo baxo arrinta muhiimkii marka waxa weeye ilaa 1991 ilaa maanta si kastaba ha ku bilaabanto arrintii burcee ma la isku raacsan yahay ma wax uniform yani waqooyi oo dhan miyay isku raacsan yihiin midnimada mise iskuma raacsana jawaabtu waa qof kasta oo Soomaaliya uu og yahay iskuma raacsana in ka mid ah baa rabta intaa ka midka ahi inay doodooda jeedsadaan oo ay Soomaali kala naqsadaan oo xaq bay u leeyihiin sidaas sidee umada diidan kala go'a Soomaaliyeed ee Soomaaliya sanaad iyo qaybo ka mid ah awdal ama reer awdalba yubuhoodle xaq bay u leeyihiin inay masiirkooda ka taliyaan oo midnimada ay difaacdaan laakiin jiddarada jirtaa waxay tahay ummadii Soomaaliyeed ee kale ee midnimadu wax u gaara maaha Soomaali ka dhaxeeya waa sax ayaa meesha ka maqan sidii midnimada qaybtooda uga qaadan lahayn qaybta ugu weyn hoggaanka waa su'aasha aan rabay inaan hadda ku weydiiyo burburkii dawladda Soomaaliya kadib wax maxaa isku day ah oo la taaban karo oo laga sameeyay midnimada wadanka anigoo markaa gaar ahaan ka weydiinaya xukuumadihii iskaga dambeeyay haddii ay tahay dawladda hadda maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxda ka yahay xasan sheekh adigu ahaantaada ama kuwii ka horreeyay wax la taaban kara maxay ka sameeyeen qaarkood arrimo koonfur badan wax badan way ka qabteen laakiin arrinta ah wadanka in la mideeyo oo dawladnimada iyo calanka wad ogtahay calanka buluuga ah waxyaalo la isku xiro ama qofka nafsadiisa khatar loo geliyo ayuu noqday ilaa shaatiga ama taayga qofka lagu qabsado muxuu cadaan iyo buluug aad u wadataa marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dawladdan Soomaaliya marka koowaad ma u aragtaa in iyada xil ama mas'uuliyad ay ka saaran tahay midnimada wadanka oo madaxweynahana koow ka yahay se burburkii kadib maxay la taaban kara oo ay qabteen madaxda federaalka inuu wadanka midoobo ama dawladnimada wada gaarto والله arrintaasi horta waa su'aal muhiim ah ummadda Soomaaliyeed inay ogaato oo loo baahan yahay in hoggaankeeduba wax lagu dhiirado oo midnimo Soomaaliyeed iyo isku celin Soomaaliyeed la oran karo oo loo nisbayn karo oo madaxda koonfurta Soomaaliya hadii jeeray jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyagu haya midnimadii tallaabo ay u qaadeen ma jirto xaqiiqatan ma jirto isku dayo ayaa jira isku dayadaas waxay ka yimaadeen anigu waxaan qabaa isku daygii wada hadalka 2009 xasan siisi ilaahay ay bilaabi jireen inay ka timid international community-ga waxaana yidhahdaan ee caalamka ay ka timid ku dhiirashadaasna ay ahayd ku dhiirasho uu sameeyey Siilaanyo oo go-aan uu isagu qaatay ay ahayd ee aragti ka timid koonfur oo hilowday oo raadinaysa walaalahood oo garanaysa inay iyagu mas'uul ka yihiin midnimadii una taagan yihiin muddada daabkeediina ay hayaan ma aanay ahayd nasiib darro dhowr wax baa fashiliyey oo ay ka mid yihiin rabitaan la-aanta iyo aragti gaabnida madaxda koonfurta Soomaaliya ee siyaasiyiinta ah iyo aniga aragtidayda waxaan qabaa Siilaanyo oo xanuunsaday oo intaa wixii ka dambeeyay marka arrintaasi bilaabatay taladii ay fariis ka baxday wada weyn buu ahaa dhibaato kasta ha galo haligu kala aragti duwanaa baxaasa uu samaynayay laakiin haddana oday weyn oo Soomaaliyeed oo garanaya Soomaalinimadu marka dawladnimada laga tago iyo maamulku qiimaha ay leedahay waxaan qabaa ma helin madax koonfurta Soomaaliya ah oo arrintaas siday lahayd iyo miisaankii ay lahayd saartay xaggaana isagiina waxa weeyaan nin xanuunsaday buu noqday intii dambe oo salaf hore uguma jiray waxyaalaha marka muhiimka ah waxa weeyaan waa si wada hadalku bilaabmeen si kastaba ku bilaabmeen xasan sheekh waqtigiisii iyo Siinaayo ay joogeen isku dayo fara badan baa la sameeyey labada dhinac mar walba diyaar buu ahaa wuxoodu way u qorshaysnaayeen way u qoraayeen waa dhinaca waqooyiga nimanka maamulka Somaliland waxa ay doonayaan way u cadaayeen qaabkii ay u naqsan lahaayeen gartoodana way u caday ciddii xambaari lahayd oo miisaankeeda lehna way u diyaariyeen laakiin nasiib darro dhinaca koonfurtu
qodobka koowaad aragti weyn iyo mas-uuliyad midnimo inay saaran tahay kama aanay muuqan marka la eego afcaashooda. labo, ma aanay dadkii hawshaa ka biyo keeni lahaa ee xambaari lahaa ee taariikh ahaan iyo bulsho ahaan dhaqan ahaan arrintaa ay wax ka go'i lahaayeen ee garan lahaa ee ragga waqooyiga jooga dhigooda ahaa uma aanay astayn inay hawshaa ka qayb galaan. tusaale ahaan waxaa berigaa aada iyo aada u ordayey oo joogay xamar, waxaa joogay ismaaciil buubaa, waxaa joogay ninka la yidhaahdo cabdi saxaada kalisgaleer oo kamid ahaa baarlamaanka, niman odayaalaha oo waqooyiga ka yimid oo fara badan baa jooga oo shaac maxamed khaalidi uu kamid yahay. waxaa joogay khubaro badan baa jirta oo soomaaliyeed oo reer waqooyi ah oo labada dhinacba koonfurna kasoo shaqeeyey, waqooyina ka yimid asalkoodii. ragga waqooyi jooga iyo mataalsigooda iyo fikirkooda iyo dhibaatada ay tirsanayaan iyo waxa lagu daweyn lahaaba garan karayay. xataa dhaqankii lama hawlgelin si ummadda la isugu soo dhaweeyo. marka waxaad moodaa mar walba anigu eedda waxaan saarayaa waqooyi waa la yaqaanaa waxay doonayeen, meel bay taagan yihiin, ficilkoodana waa la ogyahado way ku shaqeeyaan. go'itaan bay rabaan. somaliland maamulkooda markaan ka hadlayo waa reer waqooyiga go'itaanka aaminsan, reer somaliland maamulkaas ka aaminsan. waa la yaqaanaa warkooda. go'itaan bay doonayaan, waxbay tirsanayaan, waxbay tabanayaan, gartooda way yaqaanaa. laakiin waxa aan gartooda aqoon waa dadkii midnimada u taagnaa. maalin walba ergooyinkii la xuli jiray haddaad u fiirsatid, rag dhalinyaro ah oo aan warba u hayn waxa laysku hayo iyo taariikhiyan iyo waxa la kala tabanayo iyo ragga kasoo horjeeda fikirkooda iyo waxay ku bugsoonayaan ayaa 2 maalmood ama maalin ka hor loo xuli jiray waagii xasan sheekh. aakhirkii wuxuu credit aan ku siinayaa xasan sheekh, aakhirkii wuxuu go'aansaday inuu rag reer waqooyi iyo wadahadalka ku daro, iyadoo shuruudda ay ku xidheen reer somaliland ay yidhaahdeen la hadli mayno dad ka soo jeeda waqooyiga. taasoo ay runtii 100% ay ku khaldanaayeen. waayo aniga masiirkayga dee muuse bixi siilaanyo ma matalo, deegaanadaan ka imid ma matalo. dad soomaaliyeed baanahay, xaq baanan u leeyahay fikirkooda fikir la mid ah inaan ka hadlo oo midnimada golaha lagu wada hadlayo wuxuu goynayna aan joogo. arrintii xasan sheekh markuu ku soo daray ninka la yidhaahdo cali axmed jaamac jegeli iyo ilkajiir iyo ina qoorsheel marba mid waa say ka booday. halkaasaa waraysigaas wada socodkaasi uu hakad ku galay. aakhirkii jabuuti waa laysugu tagay. xasan sheekh xoogaa bay ka farsamaysteen waxa loogu yeedhay special arrangement iyo mashaariicda iyo waxa loo ogolaado. xasan harkii haddaan ku dhaafo xukuumaddan madaxweyne farmaajo waayahay intaadan xasan aadan dhaafin waxaan rabaa dhowr waxyaaloodoo dhacay xilliga xasan sheekh naftiisa ka horreeyay intuu xukuumadda siilaanya haystay. iyadoo naftigeedu inkastoo aad ku tilmaamta nin odaya, dabcan nin oday waa ahaa, nin siyaasiyana waa ahaa, laakiin isagu naftigiisa waa dadka ka go-an ama dhaxalka uga tegay muuse biixi in uu xukunka somaliland isaga naftigiisa hayo. waxaa isaga naftigiisa lagu eedeynaya dagaaladii badnaa ee ka dhacay gobolada sool iyo dhinaca cayn. sidaasoo kale wadahadaladaasna dad badan waxay u arkaan inayan ahayn somaliland dhinaceeda kuwa daacada oo ay ka ahayd see ku heshaan dhaqaalaha caalamka oo magaca soomaaliya lagu bixinayo, dhankan kalena aada isu taagtaan goonigoosadkiiniina meeshuu idin taagan yahay. waana sababta ay uga ilaalinayeen dadka kale ee reer waqooyiga. marka ma isleedahay wadahadalka mar walba somaliland ay miis u imanayso soomaaliya ma aha mid daacada, waa mid ay doonaysa danaheeda markaas hor yaalla inay ku qabsato, kadibna ay fikirkeedii goosadkaana weli meeshiisii taagnaado? aada iyo aad waxa weeye horta tafsiilaayo aan ku noqday tacaddigii ugu xumaa ee deegaanadaas oo liisanaa gaadha iyo qofkii geysta waa siilaanyo oo madaxda meesha ka ahaa. waan kuu sheegay inuu jira taariikhdu waa wax dheer, dhacdo keliya maaha. isaga ayaa ka mas-uul ahaa wixii ka dhacay kabshaale, soo joogto, buoodle, maxaa la yidhahda eryadaas oo dhan iyo ilaa iyo waxaan hadda taagnaa deegaano fara badan, xudun, yani waxaas oo dhan waa taariikh oran weeyaan. laakiin waa taariikh uu ku gorgortamayo isagu rabitaankiisa, gorgortankiisa iyo miisaankiisa wax ku doonaya. qofka markaa ma odhan kartid waxa aad doonaysid aad u qabsanaysaa. nasiib darro waxay ahayd waxa uu siilaanyo duulaanka ku ahaa waxay ahayd midnimadii soomaaliya.
ciddii difaaci lahayd ee sidaasoo kale rabitaanka iyo midnimada soomaaliya daacadda uga noqon lahayd ayaa meesha ka maqnayd dee marka laga reebo dadka qabaa'ilka oo qabiil ahaan isdifaacay oo u dagaalamay ku daqaasano dhibaatada iyo tacadigu ay ugu dhacayeen waxaa loo baahan yahay iyagu way caddahay dee silaayo inuu go'itaanka doonayay haddeerna ay doonayaan horena u doonayeen laakiin sidaas si leeg way ku shaqaynayaan markay sidaa yidhaahdaan laakiin koonfur midnimadu waa muqadas wax micnaa ay ku fadhido aan lahayn oo aan lagu dagaalamayn oo aan ciddii magaranaysaa u taagan lagu taageerayn ee laguba bari furayo ayaa ka jirta ilaa min bilow ilaa dhammaad arrintaan ka hadlayaa waa taa weeyaan arrintaan ka hadlayaa sax waxaa duulaanka lagu yahay maaha reer waxaa duulaanka lagu yahay maaha degaan waxaa duulaanka lagu yahay waxa weeye soomaaliya in la kala gooyo kala goynta soomaaliyeed waaya soomaaliya in la kala gooyo difaacideeda waxaa laga rabaa madaxda soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeed midnimadeeda u dhaaratay waxaan jeclay intaa inaan ku laro madaxweyne farmaajo waaya arrinta farmaajo naftigeeda waa su-aashaan rabay inaan ku weydiiyo intii xukuumadda hadda uu joogay madaxweynaha hadda xukunka haya ee federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu yimid ma jirtay wax horumar ah oo laga sameeyey arrimaha midowga waa sida aad sheegtay dabcan waana ka mid ahayd hadalladuu yidhi midowga waa muqadas laakiin xaqiiqdii wax tallaabo ah oo uu ku bixiyey dhaqaalo siyaasad ciidan adiga aragtidaada ma jirtaa maxaad ka oran lahayd madaxweynaha hadda joogana madaxweynaha hadda jooga madaxweyne farmaajo iyo ka shaqaynta midnimada soomaaliyeed waa zero wax allaale iyo wax ummad soomaaliyeed ku soo dhawaato oo midnimadeeda ah oo uu ka shaqeeyay aniga aragtidayda ma hayo kow intaynaan u gelin waqooyiga iyo nimankan goosashada ku dhawaaqay ee somaliland midnimadu waxay ka bilaabmaysaa inta is haysa inta wada joogta ee midnimada soomaaliyeed aaminsan inaad isku haysid inaad midaysid inaad cadaalad u noqotid inaad aragtidii aad ku midayn lahayd aad ka timaadid waxyaalaha waqooyiga sii irdhaynaya ee ka sii xoojinaya waxaa ka mid ah dib u dhaca mar walba koonfur ka jira iyo foolxumada iyo musuqa iyo aragtigaabnida madaxda koonfurta soomaaliya marka aad aragtid madaxweynahan hadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya madaxweyne farmaajo 3 sanadood iyo barkaa waxay haystay isaga iyo maamul goboleedyada ama madaxda kale ee koonfur ama siyaasiyiinta reer koonfureed yes sabab ay ugu soo hiloobaan marka waqooyi ama ay tidhaahdaan waxbaa halkaa idinka jira ama waxbaad ku darsan kartaan dee ma muuqato soomaalida waxay tidhahdaa garsisanasiis waa inay ka muuqataa gurigaaga midnimadu arrinta labaad waxa weeye dadkii midnimada u dhimanayay ee u baaba'ayay ee dhibti ugu dhacaysay sida uu madaxweyne farmaajo u bari furay cid u bari furtay anigu hore uma arag kow 2 dhacdaan kuu soo qaadan 3 dhacdo waxa weeyaan isagoo garow u joogaa subareeq la qabsado waa sax waxaan filayaa February 2017 inay ahayd si wanaagsan madaxweynuhu waxa lagu soo duuray waxay ahayd midnimada Soomaaliya wax kale oo lagu soo duuray ma aanay jirin midnimada Soomaaliya isaga u dhaartay ka mas'uulaha xataa garow joog oo ka hadal oo maalin u baaqo oo magaranaysaa dee inay falku xun yahay falka noocaas inuu xun yahay Soomaalina aanay xoog isku muquuninayn haddii la raadinayo kala go iyo joogitaana wada hadal iyo heshiis ay ku imaanayso xataa intaa inuu yidhaahdo oo ku yidhahdo duulaanka in joojiya si asluubaysan oo xigmadaysan xataa wuu kari waayay subaxii wuu ka dhaqaaqay safar buu galay ilaa boosaaso safarka mashilaa buu galay dhacdada maalintaa dhacday waxay ahayd magaaladan la yidhahdo ceel daahir isagoo maraya ayaa dad u soo jeediyeen Soomaaliyeed wararka kan wadada ka leexataa waxay ku taallaa xuduudka Somaliland ay sheegato dadkii ummadda lahaa way tashadeen oo wadda laga dhisaya ceel gaabo iyo ceel daahir isku xidha ummad isku tashatay oo Soomaaliyeed weeye madaxweynena adigu aad u tahay kuna taageersan ku hako magaalada ku hako dadka la hadal waa qodobka koowaad qodobka labaad hadda waa wadadu marayay qodobka labaad waxa weeye u leexo wadada oo dadka baarig oo waxa tiraahdaa dawad mahadsantiin ha u fiican baa haysan niyada u dhig wuxuuna ma garanaysaa ku taakule
arrintaana madaxweynuhu wuu diiday waxaad moodaa inuu ku taageersan yahay dee inay somaliland xukunto inuu taageersan yahay baad moodaa arrintaa waxaa xigtay dhowaan june shirka jabuuti inaan hadalka dheereeyo ma rabo laakiin waan soo gaabinayaa shirka jabuuti waxay si midnimada soomaaliyeed lagaga wada hadlayay si kastaa ku timaado cid kastaa soo qorshayso laakiin waxaan weligeed dhicin doonin madaxweyne farmaajo sameeyey madaxweyne farmaajo wuxuu sameeyey inuu dalabkii murtabiixi yeelo waxa laalay u reer waqooyina uu ka reebo ergadiisii xataa dad miisaan leh horor control ama waqooyi yaqaana ama kasoo shaqeeya ama garanaya kuma jirin laakiin qodobka muhiimka waxa weeye maxaa sababay madaxweyne farmaajo inuu dadka reer waqooyi ee midnimada u dhimanaya ee u dulmay ee u doodaya inuu u sadaqeeyo maamulka somaliland oo uu musabiixi kala hadlo arrintaasi waxay ahayd dirbaaxadii ugu weyneyd ee madaxweyne farmaajo uu ku sameeyey midnimada soomaaliyeed iyo khaasatan dadka reer waqooyiga ah ee midnimada aaminsan yani intaasoo tallaabo oo isxigtay kii garoowe kii ceel daahir tan jabuuti waxay xigtay habeenkii dhaweyd hadalkiisii su-aalkii gabadhu weydiisay waan jeclahay inaan gaar uga hadlo iyo sidii uga jawaabay u abaaray iyana waxay ahayd dirbaaxo kale oo midnimadii soomaaliyeed iyo dadka u tacadiga ugu socday dhibaatadu ee wax walba u sheegay inuu barifur kale uu ku sameeyo markaas soo kooban waayahay waxaan rabaa walaal kama soo horeyn waayahay waxaan rabaa dhowr waxyaaloodba xoogaa inaan dib kuugu celiyo shirkii jabuuti sidaasoo kale waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa shirkii dhaqaalihii ugu badnaa loogu saxiixay somalilan oo dowladda hadda uu joogo farmaajo ay u saxiixday adiga aragtidaada haddiiba dowladdu ay wax u saxiixayso aragtidaada tusaale ahaan haddii la rabo waddanka in la mideeyo waa la oran kari lahaa aynu ka hadalno sidaynu u midoobayno xataa haddaynu kala tegayno aynu ka wada hadalno sidaynu ku kala tegayno inta aanan dhaqaale laga hadal hadda sida ii muuqata aniga somalilan oo dhaqaale badan ka helaysa waddamadii isku kacsanaayeen soomaaliya hadday noqoto ka bilaaba kenya carabaha iyo waddan walba oo siyaasadda soomaali ahaan sacuudiga iska soo yeerajeestaan wuxuu bilaabay in uu taageero dhaqaale iyo mid istaraatiijig iyo mid logisticba uu siiyo kuwa goonigoosadka ah marka dowladdiina halkana waxay u saxiixday dhaqaalaha maxaa dhici karaa waxaan arkaa aniga hadda isbedel weyn inuu ku dhici doono mustaqbalka gobolada haddii ay noqoto xataa in wada xaajood uusan dhicin inay noqonayso dagaal uun aada loogu hoobto marka adiga ahaantaada maxaa ka qaldamay madaxweyne farmaajo xilligii uu tegay shirarkaas ood leedahay qodobadaasaa ka qaldamay madaxweyne farmaajo waxaa ka qaldamay number one qodobkaan kuu sheegaya qaabka format sida dadku ay u wada hadlayaan yaa wada hadlaya maxaase laga wada hadlaya sida muuqata xogo badanna aan ku helay madaxweyne farmaajo musadixi waa la wada hadlaya muddo wuxuu qaatay waxa laalayo wixii musadixi uu u sheegayay waayo istaraatiijiyad la-aan baa jirtay waynu walaaloobaynaa dadkaynu isu soo dhaweynaynaa midnimadu way dhacaysaa annaga waxba kama qabno fagaaro caalamiya geeya adduunka haynoo yimaadeen nimanka kale waa niman qorshe leh marka somaliland maxaad qorshe uleediin u dadaalaysaan lama odhan karo maxaad qorshe ule laakiin waxaa la odhan karaa qolada kale soomaaliyeed midnimada sheeganaysaa maxaad u qabteen kaalintiinii baa lagu qabsan karaa laakiin lama odhan karo somaliland maxaad u dadaasheen ood idinku waxaa u samayseen wuxuu aragtidayda madaxweyne farmaajo wuxuu u jeeday wadahadalkii baan furmay musadixii baan wada fadhiisanay waxbaanu ma garanaysaa ummadii baan isu soo dhaweynaynaa wuxuuna u isticmaalo ololahan doorashada laakiin aan aragti dheer iyo mustaqbal ummadeed waxaan ku dhisnayn waxaad ka arkaysay sidii loo garnaqsaday markii miiska la yimi indhahay taagtaageen raggii koonfurta ka yimid madaxweyne farmaajo watay qolana dee gartoodii oo dhamaystiran ilaa nisankii ilaa maanta iyo ka horba ayay la miiska la yimaadeen wax weyn baanay u goysay adduunku wuxuu arkay dee dad diyaarsan wax doonaya ka shaqaysanaya ciddii waxa ay doonayaan u xambaari lahaydna golaha u imaanayso ayaa la arkay waa taasa kalifaysa markaa in dad badan ay kusoo dhiiradaan somaliland inay gacan qabtaan oo waxtaraan right haddiise loo ogolaado somaliland xataa dowladda soomaalidu waxaan qabaa
somaliland iyagoo midnimada iyo soomaali dad siseeyaa maaha quruumo kale waa dad walaalaheena oo soomaaliyeed aragtidooda iskaga soo horjeedaa wax laala iyo wixii mashaariic ah ee horumarineed in lagu taakuleeyo la siiyo loo sabgiriyo la wanaajiyo waan qabaa sidaasi leeg ummadda waqooyiga degan ee soomaaliyeed ee midnimada u xusub duuban ee u dhimanaysa ee u dhibaatoonaysa ee had iyo habeen u taagan iyagana in wax gaara oo loogu talagalay oo midnimadana ku ilaaliyaan xuquuqdoodii dee muwaadinimo ahayd oo soomaalinimo ay dawladda ku lahaayeen inay helaan ayaa iyaguna loo baahan yahay dawladdu waa inay aragtida noocaasa dawladdan xamar ay la timaadaa waaya marka wax caqabada midnimadii soomaaliyeed waa muqadas wax dhaafsiisanayna ma jirto tallaabooyinka iyo si allaale iyo wax kasta oo ay qaadayaan koonfurta soomaaliyana waa wax midnimada dhaawacayaba waaya wax midnimada dhaawacaya waaya waxaan rabaa inaan su-aal aada u muhiima isweydiino hadday gobolada waqooyiga markaa ay gacanta ku dhigtay jabhad maamul ay ka samaysatay ay tiri waa go-nay haddaan go-nayn weliba ma go-ayno dhulka degaanka beesha dhexe degan tahay keliya ee waxaanu la go-aynaa intii british protectorate-ka ama heshiiska la saxiixatay ama kuwii kale la dagaalamayba waxaan la go-aynaa somaliland waxaa jirta su-aal dadka degaanka adigu waa kasoo jeedaa nin mutacalina tahay dhibaato aada u fara badan ayaa kasoo gaartay dagaalaad badan baa dhex maray arrimahaas oo dhanna waxay ku salaysnaayeen dhulkani wuxuu ka mid ahaanayaa dhulka go-ay iyo kama mid ahaanayo saameyn weynna bulshada dadka degaanka way ku samaysay sharciyan aniga ahaantayda marka aan fiiriyo mas-uuliyadda waddanka xuduudihiisa in la ilaaliyo waxaa mas-uuliyadda koobaad leh dowladda dhexe tan federaalka ee maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha ugu yahay iyo sidaasoo kale xukuumadda ama baarlamaanka ha aadaan marka waxaan rabaa inaad bal ka hadashid ma shacabka gobolada degan baa mas-uulka ah inuu ka difaaco jabhad rabta inay wadanka kala goyso mise dowladda dhexe ka mas-uula oo iyaga ay mas-uuliyaddeeda tahay arrimahaas arrintu waa arrin sahlan weya kow waa inaad fahamtid qofku marka sidaa leeyahay waa inuu fahmo waa maxay dawladi waa mase maxay hogaamiyaha dawladda dowlta ahaatay waajibaadka saaran labadaasaa saldhig u ah moogtaa dawladda waxaa looga baahan yahay iyo dowladnimada oo ilmaduhu u samaysteen waa inay danahooda ku ilaashadaan kow midnimada ka midnimada dad ahaaneed iyo dhul ahaaneed oo laga difaacayo laba qaybood cadowga gudaha iyo kadibadda labadaba isku sii arrintaasaa muhiima marka yaa mas-uuliyadda marka yeelanaya mas-uuliyadda waxaa yeelanaya hogaanka ummadda dawladda samaysatay midnimada dadka iyo ta dhulka iyo xuduudaha iyo amniga dadka waxa ka mas-uula dawladduna waxay u xilsaaratay hay-ado fulineedu hawshaa u qabta kow waxaa ka madaxweynaha marka mas-uuliyadda waxaa le madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliyeed ayaa wuxuu waajibaadka saaran yahay inuu difaaco midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed dhul ahaan iyo dad ahaanba arrinta meesha ka maqani waa taa xoog ku difaacba anagu ma lihin oo hadda ciidamo iyo dagaal ciid la gal laakiin keliya waxaa looga baahan yahay in ummadda soomaaliyeed iyadii baaba diyaar oo dadkii dhulkaa deganaa inay intii karaankooda ay difaaca kow iyaga ku taageen labo ka shaqee ummadda wax isu soo jiidaya ummadda soomaaliyeed iyo kuwa waqooyiga jooga iyo kuwa koonfurta wax isu soo jiidaya taasina waxay ka bilaabmaysaa koonfurta marka hore gudaheeda inta joogta inuu madaxweynuhu midnimadooda ka shaqeeyo tusaale yar oo dhow baan ku siinaya ummadda sida lagu midayn karo dhowaan madaxweyne farmaajo waxyaalaha uu isku dayay inuu wax ku mideeyo dee runtii tallaabooyin khaldanna marka loo fiiriyo baahiyaha ummadda soomaaliyeed sida ay u kala sarsareeyaan waxaa ka mid ahaan lahayd ummadda soomaaliyeed uu leeyahay ku abaabulayo boorar qaata oo meelaha boorarka ku dhadhejiya oo tiyaatarkii dhisaya madxafkii iyo maktabadkii iyo waxa ay dhisa waxaa ka qurux badnayd inuu ku abaabulo war-shabaabka la dagaalama xoogga intaa leeg inuu ka dhaadhiciyo soomaalidu inay dhulkooda koonfurtu ay mideeyaan oo ay shabaabka la dagaalamaan oo ay ku baxaan iyo waqooyigaba wax cid kale kama ilaalisay dadka degan baa iska ilaaliyay maamulkooda dawladooda ku taageereen in lagu abaabulo bayahay in lagu abaabulo inay maamul goboleedyada iyo centerku ay wada shaqeeyaan oo ay isugu tagaan markaan sidaa leeyahay eeda badan bay leeyihiin maamul goboleedyada laakiin saa mar kale iyo sheeko kale ayaynu u dhiganaynaa laakiin mas-uuliyadda guud waxaa le madaxweynaha
midnimada markaan kusoo noqo su-aashaadii cidda laga sugaya inay ilaaliso iyo oo difaacdo waa madaxweynaha qaranka iyo dowladda ummadda soomaaliyeed ee u dhaaratay midnimada iyo wadajirka iyo ilaalinta badqabka ummadda soomaaliyeed. waayahay insha allah aad baad u mahadsan tahay. waxaan rabaa madaxweyneyaasha soomaalida iyo siyaasiyiinta maxaan ku ama kuwa hay-adaha caalamigaba marar badan su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid a dabcan arrinta sida soomaalidu ay ku midoobi lahayd. madaxweynaha waxaa la weydiiyey su-aal fagaara lagu weydiiyey, madaxweynuhuna wuxuu ka gaabsaday su-aashaas isagoo yiri waa su-aal adag, jawaabna uma hayo. sidee u aragtaa madaxweynihii dhammaa ee qaranka soomaaliyeed oo leh weliba doorasha wadanku gelayaa, waqooyi iyo koonfur iyo cid walbana doorashadaasi qayb bay ka tahay, inuu ka jawaabi kari waayo keliya halka ay dadkaasi ama sida ay ku imanayaan ka baarlamaan ahaan iyo xuquuqdooda dowladeed meeshay ku dhacayso? see u aragtaa hadalkii madaxweynaha ama inantu oo weydiisay? wallaahi hadalkaas hadal aada iyo aada ummadda soomaaliyeed runtii ula wada yaabtay buu ahaa. hadal aan hadal madaxweyne ahayn buu ahaa. hadal wax allaale iyo wax ku kalifay inuu sidaa u hadlo aan la garanayn baa runtii uu ahaa. hadalkaasi hadal dee ummaddii soomaaliyeed iyo intii midnimada doonaysayba dhaawac weyn u geystay buu ahaa. dad badan oo wuxuun ma garanaysaa shacabka u sugi jiray oo durbaan u sugi jiray oo daba socdayna ay markay maqleen runtii muraara dilaac iyo qalbi jab uu ku dhacay ayay ahaayeen. marka lama yaabin anigu madaxweyne farmaajo waayo tallaabooyinkaa hore ayaa jawaabtiisu ahayd, horuu uga jawaabay arrinka kale ee dadkaa diidanaa inay qaataan. dadka khaasatan gobolladaa kasoo jeeda ee taageersan ayaa been isku maaweyninayay oo runta inay isu sheegaan diidanaa. laakiin de boord buu ugu sawiray runtii, isagaa runtii hor dhigay runtu waxa ay tahay. wax laaliya waxaan idiin hayaa iyo waxaan idinku maqnahay iyo xalaan idiin haya iyo xalaad iga sugtaan midna yuu jirin baa jawaabtiisu ay ahayd. xalaali wax ku kalifayna runtii dee la garan maayo. marka kolley isagana dhaawac weyn oo siyaasadeed bay ku tahay. waxaase la yaab leh madaxweynaha sidaas inuu rajo ka qabo inuu ummadda soomaaliyeed u tartabo inuu garanaysa mar labaad uu soo noqdo. marka intaasaan taa ku waa gabagabeyneynaa. ya ku soco. dadka deegaamadaa ka yimid maalintii horena muraara dilaacay, markii horena shacabka u sugi jiray. waxaan arkaa ilaa shalay narrative kale hawl kale in loo dhiibay oo ah madaxweynuhu maba khaldanayna dadka dhulkaasaa khaldan. xaqiiqatan su-aasha aan ku lahaa waxaanay fahmin dawlad waxa ay tahay iyo madaxweyne waajibaadkiisa waxa uu yahay ayaanay dadka noocaasi xaqiiqatan fahmin. hadday fahmaan marka marmarsiyana uma raadiyeen mas-uuliyaddii dowladda iyo madaxweynahana qof shacab oo arigiisa la jooga ama geeliisa la jooga ama magaalo ka xamaalanaya iyo ma ay saareen. midnimada soomaaliya la weydiiyey, madaxweynahana u dhaartay, isagaana ka mas-uula, jawaabteedana isagaa laga rabaa meel kasta ay la gasho. waayahay aad baa u mahadsan tahay. caadada villa soomaaliya waxay aada u adeegsataa mediyaha inay fariimo iyo dad u ololeeya ay soo geliso. waxaan ogahay dad fara badan oo deegaanka kasoo horjeeda messajkaa loo soo dhiibay, madaxweynuhu wuu saxsanaa, idinkaa khaldan, idinkaa dhibaatada geystay, idinkaa isdifaaci, waxyaalo noocaas. laakiin waxaanay fahmin dowladnimada iyo waajibaadka madaxweynaha. waayahay dabcan kole anigu nin wariye a baan ahay, inta aan dadka la sheekaystana dadka siyaasiyiinta u badan. dad badanna waxay ii xaqiijiyeen madaxweynuhu inuusan dooneyn inuu arrimahaasi de sidii ama wixii ay ka mudnaayeen. de dabcan waxaan u malaynayaa in xukuumadda waxaa ku shaqaysanayay ra-iisul wasaaraha, waana sababta madaxweynihiio jooga oo u damcay inuu madaxweyne isu sharaxo. dowladdaasi waxaa la odhan karaa waxaa gacantaba ku hayay ama waday ama siyaasadiisa ay ku shaqaynaysay ra-iisul wasaare kheyre. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, dabcan farmaajo waktigiisii waa qaatay 4 sano hadda. waxaa soo socda doorashooyinkana dabcan waxay ku bilaami doonaan xildhibaano. degaankan goboladana waxaa lagu dhaliilaa mar walba xildhibaanadiisu. waad og tahay gobolada qaar sida galmudug oo kale fiqi kama istaagijin mucaaradnimada inuu farmaajo mucaarad ku ahaado ilaa uu galmudug meel ku hubsaday amaba hadda gacanta loo geliyey wixii ay doonayeen oo ahaa ra-iisul wasaaraha.
dadka deegaankan waxaa lagu dhaliilaa asalba inay iska kacaan yihiin iskana taageeraan qof aanan siyaasad ahaan waxba u qabanayn ama aan taageerayn. arrintaas adoo soo koobaya waa su-aasheedii ugu dambayso, maxaad odhan lahayd magacaabistan xildhibaanadan mujtamaca deegaankaa degan iyo mustaqbalkooda sida ay uga fekeri lahaayeen inay ka bilaabanayso halkaa? horta waxaan ku bilaabaya dadka deegaankani waxay taageeraan mar walba dowlad soomaaliyeed, taasi ceeb maahe waa ammaan, waa wax wanaagsan dowlad soomaaliyeed midnimo soomaaliyeed in la taageero. laakiin waxaa dhaliiltu ay noqonaysaa inay danahooda ay ku sheegaan oo waa inay iswaafajiyaan dowlad soomaaliyeed oo danahooda inta ay cadaaladda iyo xaqa u leeyihiin fulisa kalena xisaabtamaan inay taageeraan. arrinta dhimani waa arrintaa weeyaan. arrintan xildhibaanada iyo sidan lagu soo xulanayo kolley hadda waxbaa intii dee koonfurta soomaaliya ka talinaysay ama dee dowladda federaaliga ahayd soomaaliyeed guud ahaanba meel baa wax laysla dhigay. waxa weeyaan dadkiina waxaa la yidhi 110 101 qof baa soo dooranaya qof walba. sii hore aan ku bilaabay waxa weeyaan marka horeba in laga feejignaado dadka xildhibaannimada loo soo dirsanaya. arrintaasina waxay ka bilaabmaysaa sida aan sheegay dadka wax soo xulaya ee isimada ah waxaa ku xiga ergada qofka dooranaya. hadday kuwaasi ka dheeraadaan iyo qaraabakiil iyo laaluush karti iyo magaranaysa husmaan iyo tartan iyo aqoon iyo waayo-aragnimo ay kusoo doortaan qofka ugu badnaada ee qanciya, waxbay ka tari karaysaa inay ka shaqeeyaan danaha ummadda. laakiin arrinta ka weyn waxa weeye danaha gobollada lagama shaqayn karayo. xildhibaan xamar joogaana wax weyn uu qaban karaya ma jirto haddaanay jirin wax ummaddaasi ku midaysan tahay oo ay difaacanayaan oo fulinayaan oo xildhibaanka cid jirsatay oo la xisaabtamaysaa aanay ka dambayn. arrintaasina waxay u baahan tahay in wada tashi iyo talo dadka deegaamadaas ay isugu noqdaan. taladaasina waxay ka bilaabmaysaa si dhaba in degaankii la isugu noqdo oo qaab reer ahaaneed loo shiro, laga wada hadlo, fikir kastana tixgeliya. mid go'itaan aaminsan, mid puntland aaminsan, mid jabhad buu hadda ku haysta, mid qoraaqadkeeda afartignikaa ku haysta. ciid waliba ay kasoo qeyb gasho ummadda dhulkaa degan sooniya sanaad ay dood xalaala la galo. xaggaynu joognaa, maxaa inaga khaldamay, yaa inaga khaldamay, waa maxay baahideenu, sidee baynu kaga bixi karnaa? halkaa go-aan marka lagu gaadho. nasiib darada jirtaa waxa weeye hadda waxaan maqlayaa niman odayaal oo la baxay guurtida khaatumo ayaa waxay shirka abaabulayaan kooxaysan xamar. ujeedaduna waxa weeye xildhibaanada yadaanu xamar kusoo dooranaynaa. dee ummadda sidaasa ee aqoon-yahankeedii sidaa u fakerayaan ee ay iyagii isbari furayaan si ay magaranaysaa waxa kan uga bixi karayaana ma ay jirto. maxaa ka khaldan in xamar lagu soo doorto ayaa la isweydiin karaa ama ay u ololeeyaan. arrintaa waxaa ka khaldan xamar waxaa lagu dooranaya dadka banaadir degan iyo somaliland go'itaanka dadka aaminsan ee aanay deegaanadooda ka dhici karayn in lagu soo xusho xildhibaanada. deegaamada dadka sooliya sanaag way ka dhici karaysaa, buuhood bay ka dhici karaysaa, boocam bay ka dhici karaysaa, dooxooyinkaa baraaha iyo tira table iyo maraalig iyo bay ka dhici karaysaa, dhumay baad la tegi karaysaa iyo qowlo. waxaad geyn karaysaa haddaad jirta sooliya sanaag iyo buuhood baad ka carabtid sanaag dambari carro warsageli bay ka dhici karaysaa. yacni lama mid noqon karno burco iyo hargeysiya berbere iyo sheekh xildhibaanka somaliland ee deegaankiisii ka taliso ee dadkiisii ogol yihiin in anigaas isku saxan wax laygu rido. waxay noqonaysaa waqooyi waa qayb gaar ah oo go-an oo somaliland macnaha ay ku hoos qabsoon ay samaynaysaa. waa sidaa waayahay marka ku talin lahaa waxaan ku talin lahaa kusoo geynaya arrintaa nimankan talada biixadkaa marka walba samaynaya ee odayada ah ee dhulbahante ee adeeradaya qof ahaan sharaf baan ugu hayaa qof ahaan. laakiin waxaan ka hadlayaa waa dan umadeed iyo siyaasad umadeed. waxaynu ogeyn khaatumo oo wax inta go-aan laga soo gaaray afar afka soo gashatay ay sameeyeen oo nimankii hormuudka ka hawaya kuwa kan way kala jabeen oo khaatumo ay ka soo hareen. doorashadii 2016kii oo madaxweyne farmaajo lagu soo dooranayay sidaasoo kale oo laga xamar uga bilaabeen oo isimada ugu yeedheen. waxaa la arkaa marka doorasho dhacayso sii khaatumo doorashaa dhacaysay. hadda doorashadii puntland ee ugu dambeysay iyagoo isbahoodii iyo dhigahoodii wata
oo midaysan bay tageen oo ay ka qayb galeen soo garan maysid Waayo. maanta Puntlandna waa xaaraan waxaasna waa xaaraan bay leeyihiin xamar bay joogaan dee dadku ma aha dhubaante askar ma aha siiriga afar oday mar bugeer ugu yeedhiyaan waxaan kula talin lahaa xaq bay ummadda tani ku leedahay waa waayaaragoodii aqoonyahankoodii hadday rabaan xildhibaan yaanay xiliyahooda kusoo koobine ha tageen dhulkii ummaddan ha abaabuleen ummaddan ha isugu yeedheen afkaartooda kala gedisan ha mideeyeen xildhibaanadoodana sidaa ay ku socdaan iminka ha kusoo baxo deegaanadooda lagu soo doorto xoogana ha la saaro sidii dad xalaala oo la dhaariyey oo ismada laga bilaabo iyo ergooyinka iyo xildhibaanada laftooda inay laalush waxayna usoo bixi lahaayeen ummaddana loo midayn lahaa waayahay warqadaha ay dowladda dhexe ama soo saareen ee doorashooyinka ku saabsan specifically ama si gaara waxaa loogu xusay Somaliland marka adigu haddaad tiri hadda qaar odayaal ka mid ah oo xamar jooga ayaa ololaha ku jira ma la oran karaa mise adigu sidaasaadba u qaadatay inay yihiin group aaminsan dadka deegaankaasi inayba Somaliland ka yihiin dhinaca Puntland waxbaan balkaa weydiin doonaa bas maxaad ku diidan tahay adiga fakarkaaga in inkastoo aad hadda sheegtayba in dadka Sooliya Sanaag xildhibaankeeda xamar lagu magacaabo su-aasha waan ka jawaabay taa waan intaas horu baan ku dhaafaya waxa weeyaan waxaa misaal lala dhigayaa meelna ay wada joogayaan xildhibaanada Somaliland bay la maqan noqonayaan waxaan kuu sheegayaa waa sida ay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin oo maalka ku bixinayaan maamulka Somaliland waxa la rabaa in la yiraahdo marka dhubaanta xamar ku shiro yiraahdo waxba rugaan baan ogaanay sidaas aan la soo waday isku yimaadaan sawirka bixinaysa waxa weeyaan odayaal garxajisa ama habar yoonisa oo xamar ku shiray oo mucaarad ku ah Somaliland sidaa uu bay la mid noqonayaan odayadanina waa mucaarad Somaliland ay Somaliland uga dhigan tahay dhulkiina kuma shiri karaan dhulkiina annaga ka talina therefore annaga ana lagala hadlo dhinaca kale waayahay dhinaca kale eedda waxay dadka qaarkood ay aaminsan yihiin haddii Puntland waad og tahay dani dagaalka ugu weyn oo uu la galay farmaajo xogta hoose anigu ma fadhin sida la ii sheegay waxa weeye sida uu ku xili lahaa xildhibaanada deegaankaas waxaana igu maqaalo ah sababaha loo koobay magaalooyinka oo deegaanada loo geyn waayey waxaa la rabaa in la koobo dadka qaarkood marka waxay aaminsan yihiin Puntland ama madaxweynaha hadda xukunka haya dani waxa uu rabaa inuu hubsado qof walba oo xildhibaan galaya deegaanaadkaas Puntland oo idil oo beeshaana markaas lagu soo darayo in ay noqoto dad hadhow isaga codka siiya ama taageersan siyaasadda Puntland waadna ogtahay hadda dad fara badan oo ololeynaya oo social mediaha taqaanid ka ololeynaya waa dad ka shaqeeya ama ku jira ama qaar ka mid ah baarlamaanka Puntland hadda ay u ololeynayaan sida tusaale ahaan baarlamaanka aqalka sare ay uga qayb galaan oo kale marka haddii aad tiraahdid dhulkiina de dhulkii laguma qaban karo sida ii muuqato magaalooyinka kale lagu qabanayaa marka maxaa xaqiijinaya haddii garowa uu qofka inuu aamino inay musuqa u dhacayo xaqiijinaya maayo laakiin waxa weeye dani hadduu sidaa ku dadaalay وسأشي هو وين قف دجالة يسوي تمشي صار كونه المحاجة دجالة على ما ورن كرو ما فهمت يعني كل شيء يوحنا شو أنت سوي زير أنت صوح ديوان وأمسن كنت للنظام كأمسن هو صار الرباع وفي صار عينه كتحية وحال الرباع لمن كان حمر ضرة كتر تمي جورتي اللي هذا كتر تمي جو جري لتر تمي بطلع هو حرارنا لها maantana inagula waa xaaraan xamar bay tagaynaa kuwaasaa laga rabay inay iyagu intaan doorasho iyo waxa la gaarin ummadadan ay meel u jiheeyaan oo ay maalinta xildhibaanada la dooranayo oo soo noolaadaan ama doorasho ka dhaxayso mooyaane la raba inay jiheeyaan taa weeye ka doorka inaga leh doorka dadka dhulka jooga bay ahayd inay ka dhaxsadaan dani kuwa la joogay la aansan bay ahayd inay yiraahdaan no mar haddii ay ka dhacayso lama magaalo iyaga iyo kuwa wargeliye sanadkiisa inay ilaahan magaalada dhinaceeda noqonaysa magaalada dhinaceeda ma aynaan gaarin wali xaqiiqda ma hayno laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay niklika kula dhagaan oo lagula dhago waa gartay dowlad ku heshiisayna ay qaybtooda ka qaataan waa sax iyagu danahooda ku dhacsadaan nimankan dibidaabyada ay ka daayaan guutida khaatimo la yidhaahdaana ay dadka dibidaabyada ka daayaan iyo maalin walba bari furka iyo siidiga ay ugu dhifanayaan marka meel doorasho
ay ka soo dhacdo maanta wadada u furani waayahay waa inay dhulkii tagaan oo dadku leeyaan waayahay qaar ka mid a madaxda hadda aad xustay anoo soo gabagabeynaya barnaamijka kolley waxaan u malaynayaa waxaad ka hadlaysaa madaxdii qaar u tartantay madaxweynenimada iyo sidaasoo kale qaar xilligii s c madaxa soo ahaa oo iyagu naftigooda laga yaabe dee wasiirra ka mid noqday isimaduna xiliyo kala duuba soo maray haddana aad ognahay inay joogaan ama tagaan waddanka meesha ay doonaanba marka adiga fikir ahaan waxaad aaminsan tahay idinka ama qabiil ahaada ama degaan ahaada idinka ayaa mas-uul ka ah cidda aad doonataan inaan xildhibaan kusoo dirin haddaadan dadaalin ciddii doonaa magacaabanaysa marka waxaad leedahay idinka idinku xidhan tahay absolutely waa halkaa weeyaan idinka ayay idinku xidhan tahay yaan laydin gacan dhaafin taladiina qofka xildhibaanka 110 qof oo raaskiisaabaa soo dooranaya halkaa xoogga hala saaro in 110 qof oo ufana soo doorto in isimka la dhaariyo baan anigu qabaa waan ku celinayaa isimka in la dhaariyo iyo laaluush inaanu kusoo xulin qofka ergada naftoodana la dhaariyo qofka ay dooranayaan inaanay iyo laaluush kusoo xulan qofka soo tartamayana la dhaariyo inaanu laaluush aanu bixin halkaa inay ku mintidaan weeye guurtidana anigu qof sheegi maayo guurtida khaatimo nimanka la yidhahdo waa taqaanaa si wanaagsan waa nimankii khaatimo ka midka ahaa waa kuwa aan sheegaya xamar imika dadka ku wadaa isimadana siirin raba inay xamar ugu sanada yidhahdaan kaalaya arrintaasi khilaaf waxaan ahayn iyo foolxumo ay dhalinaysaa ma jirto waxaanay la mid noqonayaan mucaarad somaliland ku markaati furayaan mucaarad somaliland aan dhulkoodii ku shiri karin bay la mid noqonayaan laakiin dhulkeenna 100 meelood baa lagu shiri karaa 100 meelood baa wax lagu dooran karaa 100 meelood baa magaranaysaa talada ummadan loo fadhiisan karaa in lagu targooyo waayahay qolada hadda aad sheegtay dad badan waxay aaminsan yihiin dee siyaasadahoodii waa la arkay iyo qaabkay tallaabooyinkooda inay failure ay ku noqdeen arrimaha siyaasadda maxaa loo waayey dad cusub oo usoo baxa ama dhallinyaraha ha noqoto ama sidaasoo kale generationka dhexo adigaba aad ka mid tahay noqdo oo iyagu naftigooda mas-uuliyad iska saara aragtidan siyaasadan in wax laga bedelo oo wax shaqaynaya dadkan isu keenaya la helo sida aad og tahay cali khaliif baa dee u hayay majaraha wixii la oran jiray G11 iyagu asagana markuu qaatay majarihii waa lumay kabacdina ineffective bay noqdeen wax ay qabteen oo maanta aan tilmaami karna ma jiro laakiin anigu waxaan aaminsanahay waxaa la waayey dad ama dhallinyaro ah ama da kala dhexa oo aragti kale la yimaado ama shiri kara ama shir u qaban kara dadka welina fursad baa jirta maxaa loo waayey dad kale oo dadkan iyagu naftigooda talada kala wareega wallahi horta mushkiladu waxa way culture baa abuurmay ilaa iyo intii khaatumaha oo ila laalay cidii wax garanaysay ama fikir kala qabtay in la cambaareeyo la eedeeyo la canjarafeeyo dad badan oo wax garan lahaa hadda waxay ku jiraan state of shock way wareersan yihiin meel wax ka bilaabaan bay garan layeen iyo ummadana siday u socoto laakiin waqti uun baa la helaya waqtiyada ka mid a waa in lagu baraarugsanaadaan talada dadka deegaanadaasi iyaga oo ay isu yimaadaan oo talo barax tiran oo qabiil ay u fadhiistaan oo ay maxaa idinka khaldamay yaa idinka khaldamay sidee u khaldameen maxaa lagaga bixi karaa la isweydiiyo oo laga soo qayb geliyo dadka afkaaraha kala duwan leh ilaa somaliland ilaa puntland ilaa meel kale oo ay wada fadhiistaan oo talo reer la gaadho taladaasi gunta dhigan mayso waxa ugu weynaa mar walba yeelanaysa arrinta sii fogeynayana waxa weeyaan marba 4 nin oo iscimaamaday oo iyagu darajo issiiyey inay usha ama siiriga ay u yeeriyaan oo meel ku shubaan wax ka dhashaana waa tafaraaruqii oo sii faafo oo sii fida waaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasaanu ku gabagabeyneynaa dadka dhinaca social mediaha nagala socda aad baad u mahadsan tihiin insha allah sidaan idiin sheegayba telefishinka darwiish t v dhinaca satellite-ka wuxuu soo geli doonaa haddii lahaydba bishan october aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa maxamuud ibrahim oo barnaamijka nagala soo qayb galay waanan ku mahadsan tahay fikirkaaga iyo caqligaaga iyo aqoontaada aadna waxaan ugu dhiirigelin lahaa dadka isbidaya inay aqoon leeyihiin oo nasiib darada ka seexday dhulka ama degaanka inay ku dhiiradaan inay xaaladaha gobolka iyo degaanka ka jira ay ka hadlaan dabcan mid ka mid ah saameynta ugu weyn oo dhulka ka jirana waxa weye dadkii aqoonta lahaa ama dadkii ilbaxa ahaa oo ka tegey kadibna dhulkii uu ku haray dad aanan aqoon lahayn kuwaasoo noqday markii dambena ayagu naftooda dad siyaasadii ka qayb qaata aad baan kaaga mahad celinaya maxamuud aad baad u mahadsantahay
يا ضد ما كنت هذه بيدك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياهي intaas ayaanu kusoo gunaanadina barnaamijkeega waraysi ah ahaa. haddii adigu naftigaaga aad rabtid inaad barnaamijkan martina ugu noqotid, haddii ay noqoto qaab live ah oo maqal iyo muuqaal ah, ama hadday noqoto qaab sidan oo kale qofka muuqaalkiisaan isticmaalayna mar walba waa soo dhaweynaynaa. aragti walba iyo qof walba oo danaynaya in uu u damqado wadankii iyo dadkii inuu barnaamijyadeeda nagala soo qayb qaato. haddii ilaahay idma sidaan idiin sheegayna telefishinka sida ugu dhaqsaha badan ayuu October uga howlgeli doonaa wadanka iyo meelo kala duwan. inta aan barnaamijkan ku kulmi doono waa anigoo Axmed Laariya, saacadda markay tahay 1:00 haddii ilaahay idmo gobolka Minnesota 9 fiidkii ee xilliga Soomaaliya ayaanu barnaamij lamida haddii ilaahay idmo dib iskugu soo noqon doonaa. inta aan xilliga gaarayna waxaan idin leenahay dhammaanteen assalaamu calaykum.